maalin buu wicitaan u sugaya asiga maalin buu cusuga go'aamay meesha tigi doontaa haddana qofkii bedelkiisa qof ku shaqaysanaya haddana looma sheegayo soo xasan uga tashto iyadana waa caqabad jirta marka la joogo Soomaaliya raadinta fursad shaqo waa qayb ka mid ah hawl maalmeedka bulshada dhan oo dhalinyaro u badan kuna wax bartay gudaha dalka lana dala dhacaya saameynta shaqo la'aanta xalka loo helin ee ka jirta gudaha wadanka arkood si joogto ah ay ugu xiran yihiin bogagga iyo mareegaha internetka oo lagu daabaco fursadaha shaqo ee dalka ka jira iyo sidoo kale xarumaha dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee bixiya shaqooyinka balse arinta caqabada ku ah dhalinyaro badan oo ay ka cabanayaan ayaa waxay tahay in shaqooyinka ay tartanka u galaan ama codsiyada u dirsadaan ay dhacdo in qof si gaar ah loo geysto marka uu ka baxo waqti badan dib damana aan loo soo xiriirin Jacfar Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka waxa uu nooga waramayaa caqabadaha laga kulmo raadinta shaqooyinka la soo bandhigo dhibaatada ugu weyn ee la kulanno si joogto ah inuu soo aragnay aniga qodheed igu soo dhacday waxa kamid ah in qofka uu shaqo doonto xaruntii uu shaqada u doontay oo islaha tag markii uu tago afgoobaadsi iyo hadallo aad u fiican oo himilo iyo hankala gelinayo lagu hadlo la soo dhaweeyo aqoonsi iyo shahaado iyo waxyaabo uu haysta la weydiiyo tayadiisa aqooneed iyo shaqadan khibrada uu leeyahay kadib qofka markuu shaqadii loo xayisiyo asna hamiga uu lahaa uu galo shaqadii uu sii rajeeyo kadib lagu yiraahdo tusaale waa kula soo xiriireynaa isagoo qofkii qaabka loogu jawaabayo qaabka loo ajiibayo qaabka loo soo dhaweynayo iyo qaabka loo macsalaaneeyo aad u fiican tahay laakiin marka ay ugu xun tahay oo caqabadaha ugu badan ee laga sheeganayo ma ahan qaabkii shaqada loo raadinayo waa qaabkii shaqada loo heli lahaa haddaba maxay tahay sababta keenaysa in sida loo soo bandhigo shaqooyinka aan loo helin waxa arintaasi wax ka weydiiyay Dr. Cabdiqaadir Maxamed Mucallim Al-Khalifa oo ah cilmi baare sidoo kalena baraka ah dhowr jaamacadood oo Muqdisho ku yaala sax ma ahan in wax public loo soo xayeysiiyay si gaar ah qof loo siiyo horta sax ma aha waa logic ahaan aqli ahaan akhlaaq ahaan hadaan iraado waxaan dadkoon dhan ay ka dhaxeeyaan haloo tartamo waa inaan qabto tartan dadkoon dhan inay u dhaxeeyaan laga fahmi karo oo laga fahmi karo xataa qofka aan qaato dadka ay ugu garaabi doonaan hal way dhihi doonaan wallahi meeshii cadaalad baa ka dhacday si waxa loo kala baxay oo qof walba iyo awoodiisi ninkaas wallahi anagoo dhan u jeednay inuu mudnaa meesha taasoo u noqonaysa xataa amaan iyo sumcad hay'adii ama institutionkii xayeysiinta soo sameeyay laakiin anaga Soomaaliya nahay wax badan isku dhaxyacsan wax noo fadhiya iska yar Liibaan Xuseen Maxamed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha bangiga IBS oo kamid ah kambaniyada waaweyn ee shaqooyinka bixiya ayaan wax ka weydiiyay qaabka shaqaalaysiinta iyo sida ay u kala saaraan dadka u soo tartama shaqooyinka ay soo bandhigaan markooda waxaan ugu baahidi kadibna shaqada waxaan u sameeynaa requirement-gaas oo ku xusan qofka macnaheedu wax barashadiisii khibradiisii kadib waxaan sameeynaa website-yada Soomaalida oo shaqooyinka lagu soo xaysiiyo ayaan gelinaa IBS website aan gelinaa social media aan gelinaa Facebook IBS aan gelinaa say bulshooyinka Soomaaliyeed u arkaan shaqadaas ay u soo macnaheedu xareystaa kadib markii shaqadii la soo xareeyo dabcan dadna waxay raacayaan macnaheedu requirement-ki meesha ku qornaa dadna way iska soo xareysanayaan marka waxaan sameeynaa according to requirement-ka aniga noo qornayd yaan dadkii shortlist u sameeynaa shortlist-ga markaan sameyno oo ay noo dhamaato shortlist-gaas dadkii soo xareystay waxaan ugu yeernaa examki marka imtixaan inay galaan ayaa ugu yeernaa imtixaankii qoladii ka soo gudubta ayaan u diyaarinaa interview panelkaas oo 5 qof ka kooban 3 wajira leh 3 waji buu soconaya 3 waji qofka marka koobaad waxa macnaheedu maadaama qofka aad CV-giisa taqaanid maalinta koobaad interview waxa laga qaadayaa ku saabsan macnaheedu background-kiisa ku saabsan waxbarashadii ku saabsan khibraddu u leeyahay macnaheedu iyo introduction guud ayaa qofkii lala yeelanayaa kadib kan labaad imtixaan caadi ah oo imtixaankii laga qaaday iyo mid kale oo macnaheedu standard oo u qoran IBS laga qaadayaa midka ugu dambeeyana waxa laga hadlayaa hadduu soo baxo intaas waji ka soo gudbo midka ugu dambeeyana waxa laga hadlayaa haddii shaqadaas markuu ku guuleysto offerkii loo sameyn lahaa iyo wixii kale HR policy markaas yaalay
ayaa lagala sii hadlaya. Saamayn taban ayay dhalinyarada qaarkood ku reebtay marka ay ku guuldareystaan raadinta shaqooyinkii ay ku haminayeen. Caqabada ugu weyn marka waxay noqonaysaa mustaqbalkiisa dambe inay jibinaysa qofka. hadduu 2 shirkad 3 shirkadood iyo 3 xarumood oo shaqo u tago mid walba waa ku soo wicina la yiraahdo CV-ga uu dhiibtay meel hoose la iska geliyo amba qofkii bedeli lahaaba asiga la haysto mar walba haddii waxa laga yaabaa qofka inuu 3 waxyaabood ama 2 meelood ama 3 meelood uu ku hanjabo kadibna uu shaqo dambe raadin waa caqabad jirta. Dr. Cabdiqaadir Maxamed ayaa qaba inay dhalinyarada niyad jab ku tahay shaqooyinka la soo bandhiga haddana aan loo bixin sida cadaaladda ah. Waxa arkaysaa wuxuu ku dhahayaa qolooyin meeshaan isaga geeyay CV-ga rajo kama qabo laakiin wuxuu isleeyahay lacala CV-ga meesha yaal ama un aragtaa nin meesha awood ku leh oo dhaqaajin kara CV-gaadi oo shaqo ka siin kara meesha. Shamsa Cabdiraxmaan Maxamed wararka TV-ga STN magaalada Muqdisho.